السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن لما نداوديال halka aad inaga daawanaysaan waa Som Turkey TV waxaanu ku sugannahay magaalada Istanbul waxa dhabarkayga dambe ahaaday xaruntii jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga waxaanu wareysi kooban kula yeelan doonaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka dhisan magaalada Istanbul iyo guud ahaan dalka Turkiga ina soo raaca السلام عليكم شيخ محمد سمفانت ما شاء الله أدونا هاي هذا وين ما شاء الله تفضلوا في جالية سومالي ودك تركيا هذا وين واتهاي هاتنا وحان لفردنا قدوميها جالية جود كديسان دلك تركيا شيخ محمود محمد كسودو تيفيغا سوم تركي تيفي بسم الله الرحمن الرحيم آدي آد بان أقول له هاي صوم تي في مركز رئيسي ونصاب بعضين آد بان فرحسنا هذا وين وكان مهد علينا وقتك آدي نسيسي إن سؤال شو قريسون كويدنا وحيتها هاي حل ما لفري جاليدان بسم الله الرحمن الرحيم جاليدان رنتي وحال لفري شنتي بشي لو يتمناد لو كن يتمنى تضو أيا لفري أصل رسمي الله فري حرق الله جري حل جاس رنتي لقونا فري mar uu soo booqday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la kulanay markaas ayuu amray inaan furno xafiiska guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Turkiga iyo xafiisyada kale oo farac markaas ka noqonay imise meelood ay jaaliyaddu ku leedahay xafiisyo markii laga tago xarunta ganacsiga ee Istanbul jaaliyaddu waxay xafiisyo ku leedahay horta head office-ka waa Istanbul waa sida arkaysid waxay kaloo xafiis ku leedahay magaalooyinka Konya waxay ku leedahay magaalada Balakaysar waxay ku leedahay magaalada Kutahayo xafiis sharciyeysan oo ka jiro asagana sidoo kale xafiis kale wuxuu ka jira asagana magaalada Ankara oo maarta gabar baa joogta caasimadda gabar baa joogta marka xafiisyadaas oo dhan waxa kaloo xafiis uu ka jira oo hadda asdib habeen lagu sameyn doona magaalada Sparta xafiiskaas hadda dib loo habin doona insha Allah maadaama xafiis sar uu ahaa in la weyneeyo ayaa hadda la go'aansaday sidoo kale waxaa jira mid kale magaalooyin fara badan oo yaryar oo hadda insha Allah xafiiso loo sameyn doono mar dhow maadaama hadda jaaliyadda ay baahday oo dadka ay bateen oo wadanka lagu soo zaa'iday marka in dib loogu noqdo dadka diiwaan galintooda iyo hadii Ilaahay yiraahdo habeentooda aad weyn waxaynu ognahay sidaad sheegtayba in dad badan ay ku nool yihiin wadanka Turkiga mudooyinka ugu dambeeyay ay ku soo qulqulayeen iyagoo ku haysta ganacsiyo kala duwan siyaabo kala duwan oo iimaanay tirada guud ee Soomaalida ku dhaqan wadanka Turkiga ma idin diiwaan gashan tahay waana imisa hadii aad xog inaga siiso taas tirada guud horta saraxatan markii jaalida la furay dadku waa yara oo dad badan ma joogo wadanka tirada way koobneed markaas dadka Soomaalidana waa iska aragtay yani dadku waa iska hadii la haladin diiwaan galiyo runtii inta badan ma aqbalaan ayagoo marka u fakaraya ama in lagu daneysanayo ama si kale loo waxaynayo laakiin waxa muhiim ah yani dadkii markaas gobolada kale dad fara badan baa jira oo loo sajalan oo malafaadkaas gadaasheeda yaala ku qoran ayaa jira hase ahaatee hadda waxa dib loo habeyn doonaa goboladaas maxaa yeelay cadadkii lagu ogaa way ka bateen marka waxaan rajeynaynaa si tadqiiqa oo macnaha oo sugan in arinta dib loogu noqdo oo gobol kasta dadkiisa uu soo habeeyo inta joogta oo ku soo zaa'iday lagu soo daro hadii la helo insha Allah aad weyn waxa hadda xafiiska ugu weyn waxa uu ka furan yahay Istanbul adeegyada aad u qabataan jaaliyadda dadka ku dhaqan Istanbul maxay yihiin hadda idin faahfaahiso waxyar horta adeegyada runtii waa adeegyo kala duwan midalan dadka ku dhaqan wadanka Turkiga مثلا قف مركو عسوه وكلمات وسنقرنين رنتي وحاسينا إرشادات أما تلمامان سينا هدو قناعس أسعودي أما هدو عفمات أسعودي أما هدو أرضي أها مركين نلسو حريران وحان أشاقنا معنا وحي مكا واجب كين لأه وودنا كان يعني سيوسو لوادان ودنا كا ومركز دانو ضيو قبصدان مركا انت بدن سومالو حفيزكا يعني حرير كود وسكيري لمسو حريران وحان تاس كينيسا waxaa keenaysa yani connection-ka oo xafiiska ay leeyihiin oo aad u liita iyo qof kasta markuu soo baxayo Soomaalidu waa dad iska socotaa yani meel lama tilmaansadaan inta badan way iska soo baxaan markay yimaadaan ka bacdi ama dhibaato ay ku dhacdo ama dib uu soo gaaro markaas inay soo raadiyaan marka waxyaabaha xafiisku dadku u sahla marka waxa kamid ah مثلا qof ama dhibaataysan oo wadanka jooga oo مثلا ka soo qaado kale qof ba isbitaalkan u yimiday
lacagtii baa ka gooday haddii lacagta ka gooday deen baa lagu yeeshay deentaas marka waxay samaysaa jaaliyadda yaa inay lacag u aruuriso oo deentii laga bixiyo iyo yaa in jaaliyaddu ay waraaq ay qorto haddii lacagta badan tahay oo si looga dhaafo oo lacagtaa lagu leeyahay waxaana soo martay marka dhowr jeer in dad xataa maaragtay saasoo kale lacagta intay ka go'day ama marxuumiina oo markaas lacag lagula dheganaa jaaliyaddu ay ka furdaamisay malafaadka agteeda yaalla ay ku qoran yihiin ilaa iyo waxaan xasuustaa 6 qofood ayaan lacag laga bixiyey oo gaaraysa ilaa iyo 135,000 oo teele doolarkana lacag gaaraysa ilaa 30,000 oo doolar ayaan ka bixinay marka malafaadkii waan haysanaa background-ka waa haysanaa marka taasna waxay runtii waa musaacado runtii ku timiday magac shakhsi kuma iman laakiin waxay ku timiday tixgelin oo isbitaalku uu siinayo ama dawladda Turkiga ay siinayso jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Turkiga ayay ku timiday waxaa kaloo kamid ah calaashan waxyaabaha dadka lagu saacidayo مثلا qof baa waddanka imaanaya ama zaadkii baa ka go'aya in marka wax la isugu dardaro kale lacag la siiyo qof baa imaanaya tigid ka go'aya oo kale ka soo qaad oo marka tigidkii in asna intii loo qaban karo loo qabto inkastoo inta badan dadku ay hab kale wax isugu qabtaan haddana qofka markuu jaaliyadda la soo hadlo wax baa loo qabtaa oo macnaha yani laga caawiyo aad weyn waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed badanaa waxay Turkiga u yimaadaan ganacsi qaarkood waxay ka furteen xarumo ganacsi oo kala duwan jaaliyaddu maxay ka caawisaa dadka ganacsiyada ka furanayo guud ahaan dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul dadkaas runtii ganacsiga ka furanayo inta badan markay noo yimaadaan waxayna weydiiyaan macnaha macluumaad ama information ku saabsan meesha wax ka bilaabi lahaayeen ayayna weydiiyaan marka anagana waxaan ku saacidnaa habkii ganacsiga u bilaabin lahaayeen in marka hore ay waraaqaha ay iska sajilaan shirkad ay samaystaan lawyer ay samaystaan maaragtay muxaasib maali mushafir inay samaystaan oo u xisaabiya alaabtooda yani si aysan qalad u galin marka qofku wixii soo dhan inay noqdaan wax documenti inay noqdaan oo rasmiya inay noqdaan ayaan maaragtay ka saacidnaa waxaan kaloo ka saacidnaa qofka duu cusbiga kale yani in dad maaragtay jiraan voluntary oo ka saacidaya ama inay maktab la raadiyaan oo kale oo la kireeyaan ama inay ku xiraan shirkadihii marka uu wax ka iibsanayo kale inay ku xiraan saa ogtahay kulley waxaa jirta urur ganacsi baa jira oo la sameeyay oo runtii informationka ka saacida dadka ganacsatada ah مثلا isku xirkooda ganacsatada inay leeyihiin urur inay iska warqabaan inay maaragtay ayaguna ay kaalin runtii ay ka geystaan jaaliyadda Soomaaliyeed midda kale ganacsatada waxaan ugu mahadcelinaynaa runtii ururka ganacsiga ah waxaan ugu mahadcelinaynaa dhowr shirkadood oo kamid ah runtii ilaa maanta oo jaaliyaddu ay furneed oo 3 sano kor u dhaaftay يعني waxay dhiibayeen macna kharashaadka jaaliyadda kiradeeda maarta waxyaabaha ay u baahato jaaliyadda muddo 3 sano ay wadeen marka ganacsatadaas runtii aad iyo aad baan u mahadcelinahay ilaa haddana way dhiibaan maarta way saacidaan jaaliyadda aad weyn waxaynu ognahay markii aan ka soo tagno ganacsiga iyo xaaladda guud ee jaaliyaddu Istanbul gaar ahaan 2 degmo oo kamid ah in laga joojiyay bixintii deganaanshaha ama iqaamadda maxaa loo sameeyay jaaliyaddiinu ma ogtahay ma dawladdu ma la wadaagtay labada degmo oo waliba Soomaalidu degan tahay waxa loo sameeyay in laga joojiyo iqaamada bismillah su'aal wanaagsan su'aashaas hadaan ka jawaabo runtii dawladda arintaas waan kala xiriirnay markii cabasho fara badan ay noo timid marka dawladda su'aashaas waxay runtii kaga jawaabtay waxay dhaheen waa go'aan kumeel gaar ah waa go'aan kumeel gaar oo aan rasmi aan ahayn waxaana keentay bay dhaheen maadaama labada degmadood ay ku soo bateen dadka ajaanibta ah in aan kala saarno dadkaas si culayska uga yaraado marka laakiin waxaan rajaynaynaa kulley hadda mas'uuliyiinta inaan arintaas kala kulanno haddii ilaahay dhaho oo aan xooga saarno si arintaas wax looga qabto maadaama cabasho fara badan ay ka imaatay ilaa iyo waaliga in loo tago gobolaha gobolka ilaa iyo wasiirka daakhiliyada sidaas aan noo qorshaysan marka insha Allah tacaala arintaas waxaan rajaynaynaa in culayskaas uu faydmo oo juhdi galin insha Allah caqabadu didmada loo diiday labada degmo ma Soomaalidu kaliya ku kooban tahay mise ajnabiga dhex degan Turkida ay saameynaysaa arintaas waxay saameynaysaa Soomaalidu kaliya ma aha markaan su'aasha weydiinay because waxaan aragnay dadka midna wadamada Carabta iyo wadamada Afrikaanka qaar kamid ah ay arintaas saameysay marka wax khaas Soomaali ku ah ma jirin
aada weyn waxaynu ognahay qaar aan la kulanay ganacsatada ku dhaqan Istanbul gaar ahaan Istanbul inay noo sheegeen inay jiraan caqabado markii qofka uu doonayo in uu register ama uu diiwaan geliyo ganacsigiisa ay dawladdu culays saarto in helin wixii si degdeg ah inuu helin mudnaantii ay lahaayeen aan la siinin qaarkood waxayba sheegaanba in ayna fahmin Turkiga Soomaalidu inay halkan u joogto in ay ganacsi ka sameeyaan arrinka cabashada wali ma kala fariisateen dadka ganacsatada بسم الله الرحمن الرحيم horta ganacsatada runtii arrimahooda markii ururka la sameeyay ganacsiga markii hore runtii waxyaabo fara badan baan kala talinaynay laakiin markii la sameeyay ururka ganacsiga khaas ahaan annaga iyo ururka ganacsiga waxaan iska kaashanay in la daboolo baahiyada ay qabaan ganacsatada marka ilaa haddana runtii way noo yimaadaan oo maaragtay maalin walba qof ama laba ku imaanaysa marka wixii nooga aadan oo tusaalooyin waa siinaa khaasatan arintaas waxay macnaha quseen doontaa ururka ganacsatada maaragtay arintaas ay shaqadoodu ay tahay hase ahaatee ka jaalid ahaan guud ahaan waxaan ka saacidnaa informationka qofka u baahan yahay intii awoodeena ay tahay aada weyn ka waran isku xirka ummadda Soomaaliyeed ee ku soo qulqulaysa wadankan aadka u weyn ee Turkiga waa sidee markii aad eegto isku xirnaantooda iska warqabkooda waa sidee ka jaalid ahaan ma ka warqabtaan بسم الله الرحمن الرحيم والله كجالد أهان وكور قمنا دائما وحن كشقينا ضد كاسي ما دام ضد عصب أيهين سيدا جالد هوري جوكتي وصو بير لهايين إن لقى شقي من نمضة وضع إن لقى شقي اسكو حران توضع إن لقى شقي مارتي قفك لباتيسن أما حنونسن قفك أما مارتي إيشاق لبات معنا ظروف أي هيستوك على إن لقى هرتوا because محايا لي ضد كاسي أنت بدن وحي معناها سمينا يان مركي سوق قلان ودن كوكالي أنت بدن أما قفكي قف مال وديارسن ماها أما ماها قف يعني جدول هيستي ودنك ويكون بتوضان هسه هاتي أنت بدن تلفونات الجالد يسوى عن oo ama gudoomiyaha ama gudoomiye ku xigeenka soo wacaan ama xafiiska soo wacaan markaas ayaan waxaan sameeynaa marka itijaah مثلا ninkii bashak shahir joogo kale waxaan leenahay hebel u tag oo jooga jaalid u jooga bashak shahir qofkii sanyuurta dhibaato ku gaarto kale waxaan leenahay waa jiheynana waxaan leenahay qofkaas jooga u tag marka xaafad kasta dad baa jooga oo macnaha oo guddi oo kale ah marka guddigaas aan leenahay marka wixii ay u baahan yihiin guddigaas weydiiya si macnaha qofka loo caawiyo haddii aanu ka fognahay marka isku xirka guud oo wadanka yani wuu fiican yahay sidii la rabay weli maaha laakiin hadda waxaa laga shaqaynayaa in macnaha jaaliyadu ay dib arintaas dib ugu laabato oo xagga diiwaangelinta xagga ka warqabinta xagga maaragtay musaacadaadka in jaaliyaduna ay yeelato insha allahu tacaala mar dhow wax dalad weyn oo midaysa oo xag dhaqaale hadday tahay حق مامول هديت هاي حق من نمو انت بدي إله مرة إن شاء الله بإذن الله كاسي وحوها محمد محمود شيخ محمد oo ah gudoomiyaha guud ee jaaliyada ka dhisan dalka Turkiga waynu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee waqtigaaga inoo siisay mar kale noo soo booqan doona haddii aad leedmo ma hasan tahay waxaan u mahad celinayaa telefishinka iyo wariyaasha soo booqday sida wanaagsan oo jaaniska ay waqtiga inoo siiyeen marka mamburg baa leenahay waraysi kalena waan ka rajeynaa insha Allah guud ahaan inta waxay nooga dhan waraysigii iyo warbixintii aynu ka doonaynay gudoomiyaha jaaliyada guud ee dalka Turkiga Sheikh Maxamuud Maxamed inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga waxaynu kaga tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh